maalin maalmaha ka mid a Quraysh baa u timid Abu Talib markaas ay ku yiraahdeen adigan iska weynaadee gaboobe inankaad adeerka u tahay maadna kala gaadhida markaasuu yidhi igu yeedha markaas loo yeedhay nabiga calayhi salaatu wassalaam aqalka oo dhan Quraysh baa fadhida yaani jabaabira Quraysh oo dhan baa aqalka fadhida Abu Jahl Abu Talib Abu Lahab kullu way fadhiyaan Abu Sufyaan ya Ikrima waxa fadhiya maaragtana Utba iyo Rabi'a iyo Shayba mujrimiintii Quraysh oo dhan baa fadhida marka Abu Jahl wuxuu arkay meel Nabi Maxamed meel Abu Talib agtiisa ka banaano qof uu fadhiisan karo wuxuu isiri Abu Jahl isla markiiba halka haduu Maxamed uu fadhiisto Abu Talib xaqiisu maray teena qaadan ma yatiisa buu yeeli halkii buu ka fadhiistay markaasuu nabigu soo galay calayhi salaatu wassalaam dadna nabigu marka albaabku istaagay halkii albaabka ayuu nabigu fadhiistay marka Abu Talib baa hadalka qaato wuxuu yiri kuwani waxa weeyaan waa adeerada odayaashii Quraysh arrinkeenkii hadradan arrinkeen dadkii taladu ay ka go'aysay Makka madaxweyntii waxay ka cabanayaan ana waan iska weynaaday haddee toole waaniga iska buka adigana dib baan kaaga baqayaa inay dib ku soo gaadho anigana dhibaataan qaadi karin ha ii keenina adeer way ka cabanayaan oo waxay kaaga cabanayaan aniga ku sheegaya ilaahyaday caabudayeen baad ka ceebaysay